وحكست وأقول القاطع نبكست ونك يالنا ولقي دق مشيغه وما أرتوا أسكت القاطع وأنك أدون كانوا دباء ولو أتحامى hooyada dhashay Axmed Kheyr fanaankii hore ee Axmed Biif oo mar labaad soo hadashay ayaa sheegtay in ninkeeda dhibaato kasta uu u geysto ay iska aamusto isla markaasna ay sabarto sidoo kale muuqaalka gudihiisa kaamirada waxaa la arkayaa ninkan oo maamada u gacan qaadayo waxaan kula wadaagi doonaa muuqaal gaaraya 5 daqiiqo oo ay maamada ku xaqiijin doonto wiilkeeda waxyaabihii uu ka hadlay oo dhan in ay ahaayeen wax sax ah fadlan daawada muuqaalka noo taaba laagta sidoo kale فيديو سي شرقري واد مهدسنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام مد الصومالي من البيس ردان سلام دسلان كسنكلات سياسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت واحد جوا هو يا حبيبي أول شيء أحمد خير الله يقانو هذا اللي تدرى له هذا وهذا الصحة وهذا جدا هي معمول يكون هيتو يحب البؤي الآن ninkan oo dhinacayga suran waa adeerkiisa laxama oo hooyadiisa qaba ilmahan aad u jeedaan waxa dhalay walaalkiisa oo waalan hooyadan baahay ku jirta dhawaatay ku jirta marka waxaan ka tabanaynaa inaan hooyadan iyo ilmaheeda wax u qabto hadii kale ummadda Soomaaliyeed inay wax u qabtaan ay u daayo hadal badan xamu buuxsho hadda waxa u dhiibaya ama aan la hadlaysa hooyo macaan oo Axmed hooyadiisa hooy waxaad u sheegaysaa wiilkaaga inuu waxay isaga u sameeyay oo haali laga yahay laakiin loo baahan yahay in hooygan idin ka bedelo gaajadan dhibaatada gurigan wiilkan yariiska oo wiilkan asayla lagu nool yahay asayladana guriga ku biila walaalkii kale wuu waashi adigi waayel waayeen oo waay ma shaqaysan karo dadku waxay u soo siiyaan dariska aniga darisa lahayd nimanka gaarsiya TV lahayd qalad kamala ana u yeeri ana daris la ehelada cashiirka dariska lahayd ana u yeeri marka haddana dadkaasna wax dhiban meeshan uma keenin marka waxa uu wareejinaya maamada hooy la hadal wiilkaaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هooyo macaan aniga baarigeedii baa tahay aniga ma aragtay marxaladda hadda i hayso awgeedan baan u hadlay mahe hooyo xumaanku uma qabi aniga beerkaygii baa tahay hooyo aniga dhabarkaygii baa tahay aad iyo aad baan kuu jecelahay adduunka iyo aakhirada ku noolow haddii adduunkana ku noolow aakhiradana jannada unbaa dabaalanaysaa aniga xaggayga waxba kuuma haysto uqdudna kuuma qaadayo weligay yaalahay ciddii ma aragtay oo ku dulmisana ilaahay raalli kama aha hooyo aniga ha isuqdudayn ha isciilin adduunka intaad ku nooshahay aniga waa dulqaad badanaa hooyadii ku dhashay macaaneed baan ahay hooyo wax kasta waa ku dulqaataa dib kasta oo ninkayga yeelana weligay dad uma sheego oo maaragtay waa iska dulqaataa waddanka adduunka lagu dhibaa oo lagu ataxaamku waa maaragtay rasuulka suubana salawaatullahi calayka ayaaba ataxaan soo maray annaga hadda waa u dulqaadan karnaa waxaan waa adduun laga tagayo oo marti lagu yahay hooyo almuhiimadii aan ka soo qabanayaa anigu waxaan u baahanahay wiilkiiyo maskaxda loogu jiro iyo hooy ahoo haddaan dhinto liigu aaso haddii dhintona maaragtay la iseexiyo oo maaragtay qaatimo baan ahay qaatimadayda ducadayda waad xambaarsatay haddana waa kuu badinayaa ducada khayr baad ku helaysaa markii madiino la dhawaafay baad noqonaysaa aniga bay dhabaan guri ku rabaa gurigaas inaad ii habayso ood ii hagaajiso oo si hanaan aad iigu dhisto oo ducadayda intaasaa ka dhiman haddana waxaan ku leeyahay baarigayga baa tahay aniga wadnahaygaad ku taashaa qofkuu gafaysana ma ihi hooyadii ku dhashay oo macaaneed baan ahay hooyo diinsoor baad iigu imaaday waxa adiga aad sheegayso dhanna waa wax dhacay wax dhacayna gadaal looma raaco say ku noqotayna lama dhaho hooyo macaan hadda waxaan rabaa aniga ducadayda wixii anigu ergeyga ah oo aad ku xumaatay ku raali ahaa 114 ayadka quraanka sabeenkaaga xiray hooyo macaan meel aad joogto ku naalow oo ku noolow oo nimco ku hel waxa dhashayna baari Allah kaaga dhiga muslimkan hooyo aaba Allah kaaga dhiga haddaad wax ii heli karin walaalahay الله وبركاته مسلمين السلامتي والسلام بعد الشيء حاجة أحمد خير بيو أدونك عالم كمسلمين تجوا يا سلام قاعد أهانات يقول أهان يا أندري الحمد لله رب العالمين وذات كريرك الله أنه أحمده ويلكي هاي الحمد لله رب العالمين واحد عليه النوترتي
إلهي أبال كذا آخر يوم القيامة ميسان كالله كعرقهم مكو جسارة إيمانا قفين كلش أنا قاعد طاون دوغداي ما قالت وأنا نت كل أنا هاي هسه أهاته واحد كسر بالشيء أو فيديو كان يسوي لك أفتح كسر يسوي درتي كم همي واحد تاتي إنا ونم ذي ذاته شيخ إنا ته حاجة إنا ته إنا صلاة إلهي بتكون ما يالت هذا وقم بهمانين إنا إيجوا وسيد والله باهنا حتى يدل أنا قاعد بيك درس كان أو ماشي كهلاي ما أنا كان كوسو دوبين لور بريسة أكثر أو $8 رجال إنك إسيء واي إدي دبكة وشدل هسه ما أنا كده ما واجد تيجوري مركزني أسيء كبار مرة ما أسيء أنا مسلم نبأ نمو ولا لي أنا واني تبقى أنا ويك جريد يسيب كان يوتر مرك على حاصل أحمد وأدوني آخر عني هتوحبك وما هايست ما أنا وحن ليستي عالم كأدونك المسلمين تلو قايلنا ولا لي أنا في دوم ولا إنا كعربة أنا إن دور النقطة سأو قال بعني هو إذا أنا أشوف رب سني أن أشوفني هذا فيديو جي الدرها اللي قاعد دواي لأن يرى وقت بوري شيخ أندرس كائنة أو أبتغى أيها الهبدين بركافير وين وأمرنا بعد مرسل ده أصلا بيل وهاي بيها نايجو شوية مرك بيلكي إسهين وين ساسا أسوق عليه حتى نرحل إنه هاو هاجيو الدنيا آخر وابكو ما عسى في الدهوم هذا إن عندك كأسرة حر ما كوجد عيني حتى نواكود عيني أول آخر كالله بس sida aad wada maqasheen daawadayaal ama aad ku wada aragteen muuqaalka gudihiisa inta ay maamada duubaysay muuqaalka odagu waxa uu isku dayayay in uu markaas codka ka joojiyo maamada si markaas ay hadalka ugu dheeraan oo wuxuu isku dayayay in uu markaas gacanta ka jiido ama uu hadalka ku celiyo wiilkeeda wuxuu uu sheegay dhan waxa ay xaqiijisay in ay xaqiiqo ahaayeen oo maamadu dhibaato ay ku jirto ayaan dareemi karnaa sidoo kale maamada wiilkeeda ayada oo u duceynaysa ayuu ninkan waxa uu leeyahay wiilkaaga waxa dhahdaa iigad boos oo baydhabo boos iigad hooyadu boos marnaba kuma soo dhicdeen laakiin ninka ayaa ku qalqaaliyay asiga oo garabka jug ka siinaya in wiilkeeda ay u sheegtay in boos loo iibiyo hooyadu waxay noqotay dherega laba dhinac ka gubta waayo wiilkeeda waxa uu yiri markii ay hooyada ila joogtay aad bay u qurux badneed laakiin dhowr jeer baa la soo wacay oo caruurtii ay dhashay iyo kubii ay sii dhaleen in ninkeedii ay ku noqotay marka hooyadu hadii wiilkeeda Axmed ay la joogto waxay tabaysaa caruurteedii kale iyo xaajigeedii hadii xaajigii iyo marka caruurtii kale ay la joogtana daruuftan adag aad u wada jeedaan ayay ku noolaanaysaa marka laba darar mid dooro ayaa meesha ka jirto marka waxaan leeyahay ilaahay khayr ka waafajiyo laakiin maamadu waxaan dareemi karnaa in ay dhibaato culus ay haysato waliba ninka xagiisa oo maamadu waxa ay tiri adduunyadu waa iska imtixaan miiran oo imtixaan kasta aan soo mar waan u sabrayaa ama waa iska aamusayaa aad baa idinku mahad celinaya asxaabay muuqaalka noo sii share gareeya sidoo kale fiidiyowga ha iloobin inaad like dhac ku siiso waad mahadsantihiin si aan markasta niigu soo gudbiyo muuqaalada cusub aan soo geliyo nala joog waad nii mahad celinaya sidaas ii nabadgelyo